waxaan wax ka sheegi doonaa biidnillaahi tacaala khuluq iyo dabeecad ka mid ah dabeecadaha waaweyn ee diinteennu ay inoo ammaantay waa khuluq waxtar weyn u leh mujtamaca waa khuluq aynu arki doonno qiimaha uu leeyahay laynagana doonayo inaynu ku sifowno waa khuluqu taraaxum fi lislaam mowduuca walaaluhu dooreen isu naxariisasho iyo isu beerdabac iyo inay dadku isu nuglaadaan oo isu damqadaan wax isu qabtaan waa akhlaaq wanaagsan weeye runtii walaalayaal waxaanan isleeyahay markay doorayeen ee mowduuca ay dooranayeen kamay maqnayn inay duruufta la socdaan oo maanta oo kale iyo maalmahan sida xaaladdu u adag tahay iyadoo mar walba loo baahan yahay la isu naxariisto ayaa haddana maalmahan ay kasii xag jiraan oo dadkeenna hadday abaar tahay hadday sixir barar tahay hadday xanuuno tahay hadday faqri bariinsaday tahay hadday jahli tahay waxaasoo dhan buu dawo ka yahay attaraaxum in la isu naxariisto oo in la isu diir jilco oo la isu beerdabco khuluqan aynu ka wada hadlaynaa wuxuu ka mid yahay manduumada guud ee akhlaaqiga ah ee shareecadeennu keentay sida culimmadeennu ay tilmaamaan akhlaaqdu waa rukun ka mid ah waxyaalaha diinteennu ay keentay saddex rukun weeye siday tilmaamaan meel waa caqaa'id iyo wax la aaminayo iimaaniyaadkii wey meelna waa cibaadaad oo adig iyo alla idinka dhexeeya meelna waa akhlaaqiyaad oo adig iyo makhluuqaadkii kale ayay idinka dhexeeyaan marka mowduuca akhlaaqdu waa mowduuc aad u weyn nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi diinta dhan wuxuu ku soo ururiyey akhlaaqda in la xoojiyo xadiis saxiixa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq waxaa la ii soo dirayuun inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda wacan markaa diinta dhan ee timi akhlaaqda teeda wacan bay dhammaystiraysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu dumarka ka warramayay tunkaxu lmar'atu liarbac lijamaaliha walimaaliha walixasabiha walidiiniha fadfar bidaati diini taribad yadaag afar baa loo xishaaye qurux waa loo xishaa xolo waa loo xishaa xigaal waa loo xishaa laakiin akhlaaqda iyo diinta ku dhegganoo buu yidhi ragga markuu ka warraminaya muxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid hadduu nin qiimo diin iyo akhlaaq leh baltaba dhige nin diin leh waa cibaadadii iyo camalkii kale akhlaaq iyo dhaqan leh hadduu idiin yimaado gabadhidii ka soo doono fasawijuuh marka akhlaaqdii raggiina shardi baa u noqotay dumarkiina shardi baa u noqotay bal nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xilliyada qofka la xaman karo ee akhlaaq xumadiisa la sheegi karaa waa marka lagula tashadoo kale maalan nin baa nin la shuraakoobaya deeta wuxuu yidhi hebel baan la shuraakoobaya ka warran waxaad xaq u leedahay inaad tidhahdo hebel ma dabeecad wacnaa hebel dhaqanka noocaasu leeya iska ilaali waajib bay kugu tahy hadday gabadh kugu tidhaa nin baa ay soo doonay hebel la yidhaa ama rag baa ay soo doonay waajib bay kugu tahay inaad dhinacan ka qiimayso wuu buuxayo waa caynkaas ood ka dhargaysaa odhanine laakiin waxaad eegaysaa halkee buu ka liitaa nebiga qof dumara u timo la yidhaa faadima bintu qays waxay tidhi yaa rasuul allah ina mucaawiyata wa abaa jahma khatabaani balaag waxay tidhi hebel iyo hebel baa ay soo doonay maxaan yeelaa wuxuu idhi ama mucaawiya fa sucluuku laa maala lah ninka mucaawiya la yidhaa waa nin yaro dhalinyaro waxba islama hayo haddaad ku talagelisay haddii kalaba wa ama abaa jahm falaa yadacu alcasa can caatiqi ninkaas uusha degta kama dhigo dumarka waa karbaashaa macnaheedu waa maxay jaanibkii akhlaaqigaha buu runta uga sheegay markaa jaanibka akhlaaqiga lama dheersado waayo waa quruxdii qarsoonayd tan kalena waa quruxdii muuqatay qofkuna goormuu qurxoonaanaya oo nuuru calaa nuur noqonaya markuu labadii isku darsado hadday midimanaanayso ta muuqaalku ha maqnaato ta muhimkii waxa weeye quruxdan daakhiliga waa kow waa ta labaad faa'iidada labaad akhlaaqdu waa qiimatu lmuslim qofka muslimka waa barta laga qiimeeyo oo dee dadkan aynu ka sheekaynayne lagala tashanayay halkee laga qiimeynayay waxaa laga qiimeynaya akhlaaqda dadku maxay ku kala tagaan hantida kuma kala tagaan
midabka iyo muuqaalka kuma kala tagaan ee dhararka iyo dhumucda kuma kala tagaan akhlaaqda ku kala tagaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis dhan buu wuxuu ku kala taxay ragiisa ninba darajada iyo akhlaaqdu ku wacay xadiis imaam ahmed warinay wuxuu li arhamu ummati bi ummati abi bakr aba bakr wa ashadun fi din allah umar wa astaqum hayaan uthman wa aqdaakum ali wa afradukum zayd wa aqraukum ubay wa a'lamukum bil halal wal haram muad ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبا عبيدة أخلاق دي بنما مرسينا يا وليه درجوين بو قيبنا يا جوائز وحول الرحمة وتنكاد لنا أبو بكر باوغوسي تو أقولنا حريص بدل حاجة فلنت إيا أود الدين تلفلين أيو عمر باوغو أود بدل حشوتك عثمان باوغوله قضاء يا قرصورك يدد كاين لك لوك لقرنقو علي بن أبي طالب فرايد كي يد حالك زيد قرآن كأبي حلال يا حرام يوافقي معاذ بن جبل عقودا بيسية ومضوا البابا آمن بين الله ننك وقوء آمن سنة وأبا عبيدة علماء واحد لين صحابته قبل يقولوا ركز بيكو كلفيليا كوحدة نحريست واحد كفيليا أبو بكر كوحدة قوة واحد كفيليا عمر نبدل الجد وكفي عي أي كفيليا قيمها قفك لقو قيمية وأخلاق ذا إننا نرغن كاوين لهاي oo Soomaalidu markay nin boqorayaan waxay ka eegi jireen dulqaadkiisa waxay ka eegi jireen deeqdiisa waxay ka eegi jireen dirirtiisa waxay ka eegi jireen codkiisa laga yaabo inuu meelaha ku dhaco hebel deeq male inaga reeb gudoon jilicsan iyo gacan guran maxay akhri jireen waxaasay sheegi macnaheedu waxa weeye qofka la qiimeynaya la shiilaya waxaan imka ma aha qofka isagoo iscumaamadaya isagoo is-i'tiraafayo oranay waxaan isu gartay inaan anigu ma waa in la soo shiila la eega كذلك حتى قفك مسلم كما أنت مدح لك دقيقة قديدة خلقنا لقيك أخلاقنا لقيك شري كارهان خلق الرحمة قصة عجيب كاهي علماء السيرة صارية نبى عمر الخطاب ده معي إنه ولاية دي قبل مقعبه ورقدي مقعوه نو دياري نكينا قبل كوش هجيبا ما أنت ورقدي مقعوه كقادني أيوة حصاق العمر وجروجيسي شوجو عيال قدوشة كعيار يانو إسلاميس كشكين يانو جرو عادي لو قلنا ليه شلو عمر هو سيدي أنا عمر كان جروجي صاقله كف اللاعب وسكت الناطق حنا جروجي هذا صاقله كي هذا هنا الشبولا كي عيار هنا وقلالا استجا وحسلي عمر سكت عدعيو نين حاليسو قال له ماشي كلا جابي عمر انت ورقدي وقاتي ايو اسكا نقدو wuxuu yiri ninka gurigiisa uu naxariisan waay umadeeda uu naxariisan maaye orado iska laabo ilmaha yar markuu qalalo wuxuu ku googi qalafsanaa buu ku googi inaad wax badan oo xil ku sameynayso waxa weeye inuu qofkani naxariis yeesho wixii qaldan uu qabto wixii kale xorriyada u daayo marka qofku waxa lagu qiimeeyaa waa akhlaaqda qodobka ugu dambeeya waxa weeye quwwatul muslimiin مسلمين توحي أود يشان ما أنت أخلاق لي ما أنت فرو مسلمين أدبوا بدين مليار يبر بمريا رقالة وي هيان أقوم حم بك هيان هل كانوا كهرني وإنه قرنينا هل كانوا كهرني والكي وموضوع عن أخلاقك بلن كيني من بلن كي هين عرب كيني من رنتي لهين تواضعي سلولجي محل هذا كرم كي دقدي أخلاقيات كيو نبه هوسية marka saddexda fawaid ee waaweyn bay akhlaaqdu leedahay mawduuca akhlaaqiga hadan inta kaga imaado khuluqan aynu ka hadlayna waa rahma rahmad maxaa la yiraahdaa iraadatu isaal alkhayr lil ghayr balay khayrka inaad doonto wanaag inaad gaarsiiso wanaag diini buu noqon karaa adduunyo noqon karaa xoolo noqon karaa ra'yi fikrad buu noqon karaa adigu inaad khayrka wax tarto way naxariisto naxariistu waa sifo ilaahay isku tilmaamay ilaahay baa isku tilmaamay inuu raxiim yahay aayad quraana ilaahay wuxuu leeyahay wa rahmatii wasi'at kulli shay waxaynu akhrinaa mar walba 113 suuradood suurad mooyaane 113 kale bismillaahir rahmaanir rahiim arrahmaan ya arrahiim wa sifatu rahma wa rahmati adduunyo iyo rahmati aakhiro رحمة إلهنا وحول بوي كداريس حديث صحيح بخاري ورينا
أي واحد النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. مركي إلهي خلقي قدمي السماوات كأرضي أنت أيو إلهي ورقد قري عرشي كانوا صاري ورقد محاكو قرن نحريس تيدو وحي كحوق بدن تاي أرضي دا هذي عرض الحوق بدن تاي أرضو مينا تشوقنين لبدا وقور يقل دماء قبل الله بلا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة واتا إلهي العايو يودنا إرساقيو واتا العاسيو يودنا هون حريصانيو واتا إلهي الوقف لقادونيو يهون حريصته وبدينيو إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته مركا إلهي إن حريصته بلارن بولي حديث كلو صحيحين ككويا له أي النبي صلوات ربي والسلام عليه صحابتي لسعوتي عيدا كاها ayaa iyagoo gaala laga adkaaday oo maxaabiis badan la hayo ayaa wuxuu arkay qaf dumar oo weehanaysa ordaysa waa leegay ilma ay dhashay raadinaysa markay heshay ay la boodo halkii hooyo ku qaban jirtay ay ku dhijisay waa dhacdo la wada arkayo hooyo ilmo weydiiday waa la garanaya si ordayso markay halka ku dhijisay ayuu nabigu su'aal weydiiyay su'aal cajiib weydiiyay wuxuu dhahay tarawna hadhihi taarihatan waladaha fi naar wala fiirsada ma u maleynaysaan inay hooyadaasi ilmaha ku tuurayso dab ku tuurayso iyadoo ikhtiyaar leh masii saxaabada ma dhici karto mustaxiil suuri lallaha arhamu biibadihi min hadihi biwaladiha hadabo ilaahay adooma iskaga tuuri maayo isaga uga naxariis badan hooyada ilmaheeda rabbi baa adooma uga naxariis badan ninuun dariiqul baba ka soo xidhmay oo intaasoo jaanis la siiyo la dayacay ayuu baba cadaab gala jaanis ciidii amarka ka badan ayuu ilaahay u diyaariyay waa raxiim marka ilaahay wuxuu leeyahay ma yaf'al Allah bi'adabikum in shakartum wa amantum maxayna cadaabkiin iyo ciqaabkiin oo Allah u taraya hadaa shukriya la timaadaan iimaan marka hooyo kasta rabbi baa kaaga naxariis badan xadiis kale oo muslim soo warinayo nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi wuxuu yiri إن الله جعل الرحمة 100 إلهي نحريست بقول بو كدغي أنزل منها واحدة مربو سودجي فبها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بقول نحريست برب الله مربو سودجي مركاسا دد يدنيا بكدحيا إلى نفك حولها lugtu kor u qaadaya saanu ilmaha yar ugu istaagin bahalka wax cuna ilmihiisa uu naxariisanayaayo wuxuu ka ilaalinayaa qoobkiisa iyo micidiisa uu ka ilaalinaya waa aragtay bahalu yago micile ay haddana ilmoodii qaadanayaan micida gelin maayaan xalaya afku saa ugu qabanaya micidu ka ilaalinaya u qaadanaya naxariista ilaa xayawaanka gaadhay waa mid kaliya wa amsaka minha 99 sagaal iyo 90 kale aakhiru dhigtay ilaahay midbaabayna wada gaadhay 99 kale ilaahay baa iska leh isaga u gaartahay taynu quudayno ee martiyayno ee ilaahay ka toogaynaana waa 99 wala yahlika ala allah illa halik waxa haligmoon mid marka hore halaaga loogu tala galay oo kadin walba ka soo xirmay oo jaanis walba iska lumiyay ayuun baba haligma ee nin raga oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aqli siiyay maba haligmo taas waa ilaahay baa ku sifaysan sifatu rahma markaad raxiim noqoteed naxariis yeelato ilaahay sifa uu leeyahay jecel yahay baad ku sifowday bal qabso waa sifa nabigeenuna laha alayhi salatu wasalaam nabigeena kariimka ayaa lagu sifeeyay rabbi wuxuu leeyahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wax kale kuma aan soo dirin rahmad iyo naxariis ayad caalamka dhan tahay culimadu marka ayada sharxayaan waxay yiraahdaan muslimiinta waa rahmad oo iyadoo hadal ma leh oo isaga bay ku heleen jannada isaga ay ku dalaceen diinta dhan isaga u keenay gaaladana oo naxariis taas la yaab leh sidee buu gaalada naxariis ugu yahay horta waxa lagaga joojiyay cadaabkii salabayn la ee markaliya baabin la imaadkiisa lagaga joojiyay وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون عذابك سجى كجرستين وعذابكم أنت قالدا يعدي كلبا قيب وقدع كرا
qoladu laga gooyo qaar duufaan helo waa qayb laakiin halkii cadaabkii mar wada imanayay maalintu soo baxa ugu dambeysay taas waa mid waa talabaade hatta ka islaamku uu soo baxay la dilay waxa laga yareeyay cadaabkii kororsan lahaa iyo dheeraadkii ayaa laga jaray marka naxariis weeye marna wuxuu nabigu lahaa inma ana rahmatu muhdaa marka la ilaahay isagoo amaanay wuxuu yiri fa bima rahmatin min allah linta lahum naxariis ilaahay ku siiyay baad ugu dabacsanaatay muslimiinta walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli mid adag oo qalbigiisu qarax yahay oo qalafsan yahay dad ahaan leh horay kaaga yaacilaay waxay kugu soo ururayaanay kugu soo hiloobayaan ilaahay baa naxariis ku galiyay marka waa naxariis nabiguna ku sifeysay hadii ilaahayna ku sifoobay subhanahu wa ta'ala rasuulkina ku sifoobay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maxaa harsan inaad adigu ku sifowdo oo aad noqoto qof raahima naxariista dhexdeenuna waa talaynoogu naxariisanayo maxaynu ku helaynaa naxariista adduunyada ku helaynaa oo roobku kow ka yahay roobku waa naxariis arsaaqadu waa naxariis cilmigu waa naxariis iimaanku waa naxariis waxaasoo dhan baynu ku helay awlaada aqoonta alla ku siiyo ee caafimaadka waxaasoo dhan waa raxmad ilaahay maxaa lagu helaa inaad adigu naxariisato waa nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam arrahimuna yarhamuhum arrahman kuwa naxariista allah arrahman ka bayagana u naxariista marka la wuxuu yiri irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa marka hadaa doonayso inaad naxariis hesho adiguna naxariiso waa teeda kale naxariistu waa shay ka soo burqanaya qalbi qoyan hadaa arto qof naxariisanayo oo wax taraya cid wax dheeriyay waxaad uga marxaati kacaysa inuu qalbigiisu qoyan yahay inuu dareen leeyahay hadaa arto mid ganafka ku dhufanayo oo gaashaanka u daruurayo oo geeska gelinaya cid u baahnayd wax la taro qalbigiisu inuu qalala yahay ay marxaati u tahay sida ogeed walaalayaal waxyaalaha inagu guud ahaan aynu u baahanahay akhlaaqdooda waa u baahanay laakiin khuluqaynu u baahanay aad ka ugu sii baahanay waa kan imisa majaal buu leeyahay khuluqaynu baranayna imisa meelood ba naxariistaada laga doonaya taasina dul istaagayna kow naxariistaada waxa laga doonaya naftaada arrahmatu bin nafsi naftaada u naxariiso hadaa waa tan alla ku siiyay oo saad ugu naxariisan kow naarka ilaali naxariista ugu weynaad u qabanaysa waa inaad wixii naar gelinaya ka ilaaliso markaas naftaadi u naxariisatay rabbi muxuu leeyahay ya ayuha alladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naara halo risi naftiina ka ilaaliya tabeeta ehelkiina ka ilaaliya naar inagoo arkaynaynu ku sii wadnaa dhaqanka xun iyo caqiidada xun iyo cibaadada xunba naar bay ku horseedayaan marka ka joojiyo saddexdaba ka qabo arrahmatu bin nafsi wa qodobka koobaad nafta waxa loogu naxariisanaya in la ilaaliyo oo nafta nolosha lafteeda ma lihida Allah ku siiyo amaane ilaali lama ogola nafta inaad goyso wixii goyn lahaa dariiqeedii inaad martaan lama ogola إلهي عليه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ونفتينا هديلنا إلهي وانا رحيم بويدية هاي نفتينا هديلنا إنا توسد شو وكوكا قصيص إنا السبب طوي حي كل من يسي لبضا بوا وحلقان هي توسنا أدو شده وين نغانا أما واحد بيسكو حلحليا تيتين بوك بيسكسينيا أما لمسر حمد وحويان ميل بسكو صوتوري أما حبط بسكو قبنيا أما سنبوع والله يقناتا تلاكينا إنا نقول وحوي تا سبب يسي مدة دار وحيالها كينا حنون بالودها مركز قايبتي joogtayso ogow in adigu naftaada dilayso waayo jawaab lagu sheegay kanuu kana kaasu keena wixii kugu yimaada adigoo Allah saciida tawa qadar laakiin dariiqada inaad marto lama ogola waxa kamida istilka la istilayo oo culimadu ku dareen bada oo kacsan inaad ku marto wax yar kutubta fiqiga ku qorantay badu inda al-ightilam markay kacsan tahay doonyaha yar yar iyo laashar dad ku marto ada istilay hadaad istishana maalinta qiyaamo wax lagu ciqaabaya wixii aad ku dishay
dumidiya midadu ma isla dhacaysa hadduu sunaha suntii baad cabaysa haddii meel iska soo turtay meel baad iska soo tuuri naftan iyada ah ilaahay baa ku siiyo waa ammaano ma dili kartid waxa kamida waxyaalaha keeni karaya de nafta in la dilo inaad iyada lafteeda waxyeeladeeda aad sabab noqoto oo dawbadka ay tahriibaya baalka yar loo buufinayo og inuu bartanka ka banjarayo waxa weeyaan waa nooc min al qatl marka waxa koobaad ee loo naxariisanaya waa naftaada aad u naxariisanaysa qodobka labaad ee loo naxariisanaya waxa weeye waa ubadka dhalaanka da'yarta dhalaanka ay naga yaryar naxariis bay naga mudayin naxariistoodu waa noocee waa in la tilmaamo la toosiyo wax loo sheego wax la baro waa in qaladka laga qabto waa in wixii wanaagsan lagu tirtirsiyo waa inay beerdabac iyo beernugeel ka dareemaan waa in la soo dhaweeyo oo aan lagu adadkaan nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana naga mid maaha kaan qofka weyna karaamayn ka yarna aanu naxariisano u turin ubadku haday naxariis dareemaan way ku xidhmayaan dadka waaweyn haday ku xidhmaanna tala iyo tusaale way ka qaadanayaan ama hadii geeska la galiyo oo la didiyo de gaab baa idin soo dhaxbaxay dhexdiina gaab way kala go'antiin waxba hadhow isma sheegi kartaan waxna kaama qaadanayaan kii guulguulay ee eriyay ee firdhiya waa adiga hadhow dad tira waan ku waaninaya waxa weeyaan waxba ka qaadan maayeen marka ubadku waa ubadkeeni waxa la rabaa in xiriirkeenu fiicnaado oo inuu wax badan naga dhaxeeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam ilmihiisi ibraahim oo ay naftu ka gurmaysa loo keenay saas uu qabtay markuu arkay ilmiyo xaalad xun ku jira uu ilmeeyay saxaabadu waanin jiray baroorta ayaa ilmadii baroor u qaatay abdurrahmaan afar ya rasuulullah ma haadihi rasuulullah wa ma hay waxani ana amiyana baroor ahayn weey tulillah inma hadi rahma tan xariis baa leeyahay yaj'aluha allah fi qulubi man yasha min ibadi taladida ya ma hayn ilmada oo hiniya qaylay hadiya cabaad iyo u qaadan waa yaqraacan baa laakiin tan waa maxay waan xariis ilmada shaqeynaysa marka ilmihi xaaladu doonaa ku jiray in loo dhagal nuglaado oo loo dabacsanaado waa diin bal waxa kamida nabigeena wuxuu nagu tacliimiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inni la adkhulu fi as-salah wa uridu tadwilaha fa asma'u bukaa as-sabiy fa atajawwaz lima a'lamu min shiddati wajdi ummihi 'alayha min shiddati wajdi ummiha 'alayhi wuxuu nabigu waxaan doonayaa salaad galo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxaan niyeysnaa inaan dheereeyo ilmo ooyaan maqlaya salaadii baan gaabinaya waxaan u gaabinaya hooyadaasi inaanay salaad tukan karin waan garanaya boholiyowgeedaan garanaya salaadii uu soo gaabinaya waan xariis ilmaha loo naxariisanayo bal waxa dhacaysa nabigeena kaleey salaatu wasalaam isagoo salaad ku jira oo umada tukinaya ayaa waxa uu yimi laba wiil oo yar oo weeyay xasan iyo xuseen tushay ka fuulanba waayo ilmo goorbu ku fuuli karaa oo markaad hore la ciyaari jirtay haddaydan shaqaba isku lahayn agtaada soo mari maayo waayo waxay kutubtu sheegtay nabigu guriga markuu joogo inuu dusha saari jiray labada dhabarka oo sida neefka afarta labada gacmood iyo labada lugood ugu socon jiray guriga markii joogo say oran jiray ni'ma ar-rahlu rahlukuma wa ni'ma al-idlan antuma al neefka saarintii cajiibsana isaga sheegaya iduguna laba waxaati laba jooyadoodo isu dhigma waxay arkeen isagoo sujuudsano waatay ku yaqaaneen waa ilmo yar umad bu tukanay ormay way fuulaynu ku boodeen nabiguna hore uu ku cinay sujuud biska sii watay saxaabada qaar baa waxay yiraahdeen dhinacaanu ka eegnay ortolo nabiga miyuu tagayba sujuud markay dheeraatay hadhow markay ka dageen buu soo toosay hadhow wuxuu yiri wax dhibi may jirine inabna yahadayni irtahalani fakaritu an adrahuma ceeb kale may jirin labadayda wiil yar yar ayaa dushayga fuulo waxa nacaynaan tuuro sujuud iska jiri iyo ka suurta gasha halaga inuu xagga intuu kala tuureeyay saajka ku ciyaarino hay soo dhoonay markaan umada tukinayo agteeda soo marina marka rahma bis saghir waa wax fiican ilmaha naxariista lagu koriyaana isna maalintu qof noqdo weynaado isna inta kale uu naxariisanaya haduu mas'uul inoo noqdana uu inoo naxariisanaya laakiin hadii lagu soo koriyay tii Soomaalidu ka sheekeyn jirtay
dabadhoonka yare geela dhiilka loo dhiibay gudinta loo dhiibay maqaarka loo dhiibay maxaa la yiraahdaa maraqa loo dhiibay wax walba loo dhiibay hadhow la karbaasho maalintu weynaadeen muxuu sameynaya halkiibu ka waraabinaya oo yaqaanay ilaa baab kaliya laga waraabiyay isna baabkiibu ka waraabinaya hadiiba mas'uul ku noqdana nafs shay jaamacad kale kama soo bixin iyada lafteedu ka soo baxay sidii buu galay waxana al-jazaa min jinsi al-amal wa kama tadinu tudan sidaad yeeshun baadna laga yeelay marka ubadkeena waxay u baahan yihiin inaynu ilaalino bariyo dhaweyto dhalinyaradu kooxayo waxayna ka fara baxeen ayaan waalidka ku oran jiray waar ubadku agtiinay ka fogaanin hadii aabaha iyo adeerka iyo abtiga iyo dadkan iyo eelkuba soo dhaweeyaan uma baahanayba ciyalka laakiin marka meheradi laga eriyo ee halkii odayaashu fadhiyeen laga eriyo ee kan laga eriyo qaar soo dhaweynayo nin cajiib ah tahay nin waa hero bottle baate halka laga eriyo halka laga soo dhaweeyay kaba tagaysa ya halka laga soo dhaweeyay tagaysa teeto ka gacanta u galay laakiin hadii halka laga soo dhaweeyo sheekada lagu daro laga dhageysto oo odayaasha afkooda dhageysto xigmadna uu ka guran waanu la qabsan nin weyn oo isu qaadan markuu golaha yimaado wixii inta ka dambeeyay meel ciyaal tagibaayo waynu u baahanay inagu gaar ahaan arrahma bis-sigaar aad baynu ugu baahanay marka barakallahu fiikum qodobka labaad ubadka yaryari naxariis baynu uga baahan yihiin wiil iyo gabadhba qodobka saddexaad ama cidda kale naxariista inuu uga baahani waa labada waalid ninkii labada waalid u noolyiin iyo kii ay ka geeriyoodanba labaduba naxariis baynu uga baahan yihiin haddii geeriyoodena waa duco haddii weli noolyiinna waa gacan ku hayn iyo ka warhayn iyo dhagnuglaal iyo xanaan u baahan yihiin halkaad maraysay maraya saad u jileecsanayd way ka sii hooseeyaan waayo jileeca yaraanta waa laga soo weynaada iyada weynaan baa la sugay waxba kugu soo kordhaya koodana wax ka sii dhaca mooyaane wax ku soo kordhaya ma jiro marka waxa la yiraahdaa aabaya ilmuhu kala cajiibsan aabu wuxuu ku korinayaa inaad noolaato ku xanaanaynaya aduguna waxaad u xanaanaynaysaa inuu dhinto godkaad ku sii wadaa isna noloshu kugu soo wadaa laba isku dhowba maaha adugu maalin walba waxaad u qabataa waxa laga yaabaa inaanay waxba u kordhin wax ka sii ridaan kana waxba u soo kordhaya marka waalidka in la ilaaliyo la xaq dhowro oo la ilaaliyo waa muhiim rabbi baa wuxuu leeyahay وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مركا إلهي وحينا ليه إلهينا عابدا لبدا والدنا وصم فلا haddii labaduba kugu ag weynaadaan ama midkood fala taqul lahumā uffin hadal ay nacaan oo kahdaan oo karaystaan ku oran wala tanharhuma canana hadalkooda iska daa ya gulgul iyo hadal adag wa qul lahumā qawlan karīma hadal dabacsan ku dheh wala markay sii weynaadaan ee jilcaan dabeecada ka xumaato oo adoo wanaajinay wuxuu doono oranayaayo hadduu doono gacan buu kula tigsanayaayo waxaasi kuma diirinayaan وإن هذا الوناسنون أتداهدو وإن الصباليسو صدو كو صبالين جري وحو إلهي سير رعي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يسد اللقاء أو يسد برية أو يسد بعية وندعية يد الدعاء حد ماله بل حديث وحي شاكتي أهل الجنة إلهي بدرجة العسية والدك مركو إمام أحمد باوريني تأتو إلهي هذا إلهي يو محان كوهليتن صار باستغفار ولدك لك أولاد هذه بإلهي تم بدافع كوسو ويديو ساسا لقود العسية مركا والد كينا صلاةها يدعاء يحليضا أن لقى إلا بن وأدي مهم تاي عدة كلا أن حريصة وباهني والزوجة حاسك ضابط حاسي على تو وأد مسؤول نقطات ريالي على تو وحيوباهن تاي إن لو نحريصتو وايو نبي عليه الصلاة والسلام waxyaalaha inuu kula dardaarmay xaaska kamida laba qodob ay ku dardaarmay qodobka koowaad waa salaada ku dardaarmay iyo cid gacantiina ku jirto oo ay ooriyo ugu horeeyaan wuxuu istawsu bin nisaa khayra ragow dumarka khayr loo gaada fa innakum akhadtumuhum fa innahum awanun indakum fa innahunna awanun indakum ومن كان يقام سيه
nebigu si gaar inagula dardaarmay dumarka wuxuu leeyahay fainahunna cawaanun cindakum maxaabiis bay agtiina ku yihin markaan wuxuu sheegay qaciidatul bayt wa ghasiilatu thiyaab wa ummu sibyaan guriga idiin joogaan oo guryaha ay mamriya idiin dhaqaan oo cunno idiin kariyaan oo awlaadiina hooyowi macnaheedu waxa weeye wax walba ilaahayna si ka weyn baa uu sheegayo libaas buu ku sheegay ugan muxuu ku qabtaa oo ku asturaysa haye wuxuu qabo iyo dhaxan buu ka celiya maradu waxa weeye qabo iyo dhaxan buu ka celinaysa kadalika wa bilic iyo qurux bay maradu ku tahay iyana bilic bay ku tahay waxa inta uu sii dheer marka la beer baa lagu sheegay nisaa'ukum harsul lakum faatu harsakum an-nashid wa beerta de waa taasoo intaasoo midhaa ka baxa oo kala duduwan waxaasoo dadii hor fadhiya beertay ka soo baxeen micirka laga soo daatay si dhulka laga soo furay si lika mayo hooya laga yimi hooya qiimaha say leedahay caalamka yaa ku dhalay hooya ku dhashay ninka cabqariga ragaadka yaa ku dhalay hooya ku dhashay maalqabeenkii iyo taajirkii ninka deeqsiga yaa ku dhalay ka odayga ee dadka ku kala guntada ninka madax waxa lagu faanaba saawgad ba carabta waxay dhaan kullu rajulin azimin wara'u imra'a ninkastoo nin rageeda gabadhu baa ka dambaysa waa tii dhashay iyo tii la dhalatay iyo tii u dhaxday marka cid lagu adaadkaan karaba ma nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli kaydinku khayr badani waa ka reerkiisa u roon ee hadalka macaaniyo gacanta iyo ka warhaynta iyo toosinta iyo talada iyo bal inaga waxa laga yaabaa dhaqaalintooda iyo ilaalintooda kale inay ku wacanay laakiin waxa jira mowduucde mooy reer magaalka daboormaha iyo dhalinyarade laakiin ragga hore ay doqonibo u haystaan dumarka in loo sheekeeyo oo ee waqti la siiyo oo doqonibo u haystaan eeyaha ba ka dhacaysa shaqadaada qabso dumar baad ka tiixaajan rag halkaas u taagan yahay hadii adduunka tira ka warayso dumar baad ka tiixalka joog nabiguna habeen dhan buu dhageysanayay oo Aisha waramaysa leedahay kaana sirin 9 niswatin كان 11 امرأة تعاقدنا وتعاهدنا الله يخفينا من خبر أزواجهن شيئا حديث نبي وقشة سيتري كوبية 8 دمرة أو الرأي من هذا أياس كل أرصدي إن أنا الرجو ده وحبوبه وقرين مركزين ديكور بلودي سوتي عيايا وغيايا وطباقاو كل داء له داء مركزين تيجي لو قعدت سوتي إن شجك أو فلك أو جمع كل لك حديث كوبية 8 كيبو كده جست waxaan u malaynaa marka taan u eegto saddex baa amaanay labana dhexdhexaad bay ka dhigeen haye shanka koob iyo 10 ya lixdii kale oo dhameeyay kii ugu cajiibsanaa waxay tiri zawji Abu Zar'in wama Abu Zar' bas hooyadii amaantay oo inantiisa amaantay oo dheelkiisa amaantay oo dhargiisa amaantay oo aakhirkii waxay sheegtay berigii dambe laba dumar gabadh qurux badan buu helayo intuu guursaday way furay kii dambeyn guursanay cajiib uu noqday geel badan oo xoolo badan oo ilaaliyo caynkan laakiin ka dambe waligiiba hay wanaajiye Abu Zar'in ma gaadhay weelkiisa weelasha ugu yar nabiga waxaan uga socdaa markuu warkii oo dhan ka dhageystay buu yiri ana laki ka Abu Zar'in li ummi Zar'in ghayra anni la utalliquki wuxuu ka ugu wanaagsan la amaanay ayaan ku ahay anigu Aisha laakiin kaas de waxbuu furay anigu kuna furay maayo kaana xataa waan ku dhaamay macnaheedu waxa weeye dhageysiga la dhageysto way ku nafisaan culimada psychology waxay sheegaan dumarkan isku buuqay oo muraas wax kala ma xalaya waxbay dareemaysaa kay ku nafis leeyahay wuxuu sheegan leeyahay adiga nafka ka afwaajay walaalkeeda ku xarunta nagurigaaga haysi carruurtaada hayso odaygiiba u tagtay dhalay iyana uu ka soo horbooday xulay nagurigaaga reerkaaga hayso cid ka nafisaba shayga hadii laga nafiyo maxaa dhaca oo qarxay oo infijaaraya waxa leeyahay ku nafisaan وين اسكا dhageysato waxa dhaamay odaygii Soomaaliyeed habeen inay ka dulurmeysay iska seexday markaas uu soo baraarugay oo masjidii baad u hadlaysay masjidii ayaad u hadlaysay seetriyana oo wixii xikmadiga dhacay ka seexatay marka almuhim hadalkan ay hadlaysaa waba u dawo wayna ka gurtaa haduu doono yu gaadin heerkii aad dhageysan lahayd ama darajadii aad filaysay dadku kala aqoon weeye oo kala aragti weeye oo kala garaad weeye laakiin maxaa la rabaa inaad ka gurto bal nabigu marmar buu dardaarankooda qaadan jiray xadiiska oranaya shaawiruhunna wa khalifuhunna wa dhaif la tashado khilaafa ma bini aadamka la tashanay kamidiino maalintii asiibana waad qaadan maalintii asiibi wayna waad ka day
dhacdadan oo dhacday ayuu nabigu taladoodii qaatay sa ku taala siirada sulhul hudaybiyah nabigu wuxuu leeyahay quraysh afar qodob oo adag oo muslimiinta ku adag buu ku qaatay isagu dacwad buu doonayay inuu diinta hirgeliyo way ku qaraareen muslimiinta markii uu heshiiskii saxiixay ayuu war saxaabay kacoo timiinana xiirta neefafkana qala kun iyo 400 nin bay ahayn nin dhaqaaqa laga waay ragi dhagaan gula ee markuu nabigu soo yaaci jiray maanta way warwarsan yihiin oo hadalka oo maqli maayaan nabiga oo naxsan oo calaysan ayaa teendadii galay salama joogta xaaskiis wuxuu miyaad arkayn xaaladana dadka kala kulmay oo maxaad kala kulantay amar baan siiyo hal qof oo dhaqaaqa waa la waay waxtii ya rasuul dadku way warwarsan oo meel xun bay taagan yihiin xilligii hadalka ma ficil ku dhaqaaq iyaga fulin dooneen babu hadal uu soo baxay neefkiisii uu dhunta ka lisay wuxuu yaadhay kii xiirayay markii bay isku dili gaadhay birta say u sameynayeen geel hore u qalayeen fikradda wanaagsan yaa keenay salama keentay marka ooridu waxa weeyaan waa qayb dhan oo guriga kamid ah ilaa naxariista wadaw naxariista waxa qayb ka ah in la dhageysto oo xaaladooda la wareysto bal nabigu sidoo ugu fiicnaa Aisha been laga sheego munaafiqiintu been ka alifeen beentay ka alifeen nabigu caalimul ghaib ma oga qaybka uu iska dul maraa iyana way xanuunsatay waxay tiri waxaan dareemay sidoo igu jajabnaa iguma jajabneen wuxuu yiraahdoon ka warrama qoftii xanuunsanaysa iyo way wacantay hawshiis ka qabsada halka maxaa kaaga soo baxay markay xanuunsanaysa inuu aad ugu jajabnaa u naxariisanay maalintan uu yar caliisan yahay ayuu dhinac maraya marka barakallahu fiikum waxyaalaha muhiimka waxa kamid ah ar-rahmatu bizawja qodobka shanaad ee naxariista inoo baahnay waa ar-rahmatu bid-du'afa dadka jilicsan oo dhan haday da ku jilceen iyo haday xanuun ku jilceen iyo haday baahi kalaba ku jilceen la baahi kala jilceen kartee dhammaan dadka jilicsani naxariis bay inooga baahiin waliba naxariis qoondaysan bay inooga baahiin inagu bulshahan maalinta qayliyaan ay afka furtaan ayanu yaacyaacna aan la taarkiiseen qof islaan qolay dhalinyarada wax ka soo duubeen markay hadashay ayaa bahal lacag saa lagu yiri أنا خبط بان كان عن كوري حدينه قف كحد له وحسينه ووضع هذلي محاور دونا شو لعقت أبوه حكاحجة إن أدوية لو تتلفي بأمارتي كمرت وار إنت أنا هذا البيع حقوق اللي نجد دونية قول مقف هذلا وقول فرقة توريو هيسن كريواي إنك واحد الدونية اللي هو قف كان يشيران بولي إن الحقوق اللي نقولنا وبالجوري جاي أفر تشيهو مو ده قاعد كرتيدي دور حاجة كحاجة صدق أفرت حاجة كحاجة هي صدق أفرت حاجة كحاجة كيف هو 10 كويس ما لقيه 10 كويسة بل أنت هنا حقوقال أبد كودري كرتو أريد أودري كرتو حالة ده اللي يقوله وداي كرو أصيره صح لا سين كرو كيف يجينا واحد نجمع كان واحد على صدقة السري هديني كبيعمل شركة يقول لي هاي أكاونتن أما كيف دانو صدقة السرعة أو شغاله هصاد وديبو حوين لما بقيليان قف كيسوي تجيسو دور سوي أيو قادن لا صحابة هو يسوق جرين شري أنتوا صدق الله صعرروا أيو قف شيفه هو استك جرين شري حديث كبرين يترمي دي ورست أكت صحابي جا عن كاهل هذا أوس أيو حليبي حصدقه إن كيس معا بعدان وصرينين على يا وين أسكبر بالعدان مركا تذكر العسني وأنا كولا ينقول حريصنا يبا نبي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم صار أيوه أبغوني ضعفاكم إيه كان قوة العسر فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم الحديث كان في رصده نقول عليه ذلك العسر إيه كان واحد كوهشان نحريسته إيوه أرزاقات إيه جوشة واحد كوهشان وأنت العسر مركا يدين دعيان يدم دافك الله يدي ويديان واحد كوه لسنتا مركا واحد نوبة هني إنه نبرناه صدقته إنه برانو وأكلك من دونه إنه برانو أو أينو بحنو وضروري محايا لي حدينا كتر بيوبين وينا وحبلك ما برتو تذكرتين نيجي دي قاري حاج كيو عمره دي ميلان تجي ومضى خليج ككل كان واحد سلاي وحيالها وقبض إنه لو شو ده وناتي وواحد بعنته أرسل الصدق وساق هذية وبتكنه وساق حينيا
محوبتك وجهه نبا ويدين كل محوبتك وجهه وحلوبتك waxaan ku tacliiminayaa inay wax bixiyaan tan ilmihii muxuu ku kacamay soo saddex jira inuu wax dhiibo hadhow tamarka wax soo galaan muxuu noqonayaa wax bixinaya waxaan u baahanahay ummadeeni xaalad xun bay maraysaa xaaladaasna wax kala ma aha ajendaheena waxa ku jirta uun maalintuu soo qayliyo yiraahdo war mii baan joogaa waa caynkano biyadhaan baa jiray xudirto maalintuu xaaladdu way xun tahay masaajidka kacin wax loo dhiibo laakiin waxa ka wanaagsan qorshe furan waliba waxaan afka ku xoojinayaa sadaqada gaarka sadaqatu sir ninkii taabiciga ahaa la oran jiray Ali ibn al-Husayn wa Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib abo awowa Husayn baa dhalay Faadima ayiba u tahay maalinku dhintay ayaa dadkii meeyay waxay la yaabeen degtiisa labadan dagood madowga ku yaala madow digil wuxuu noqotay meel madow gaatira dadkii waa warwareysteen waxa uu soo baxday 7 qoys oo reer Madiina ah in cidi biilinaysay oo aanay garanay cid biilisa habeenkii saqdhaxa intuu soo qaaday kiishka daqiiqda iyo saliida ay halka uga soo tuuraa haddana in kale uu qaada wuxuu uga tuuraa daaqada halkaas uu uga ridaa ma bayaqaanaanba maalinku dhintay tabeen oo ogaadeen cidda siin jirtay inuu yahay cidda gaarka waa sadaqad adigii allun isloogtiin laakiin tan adimka halka ka kacday tir waxaan ku yaboohay waa sadaqad weey laakiin waxa dhici karta riyaa istusinu yar galo oo naftu ku yar cajibiso tira balay waxaad bixisay cid ku soo gaadhabood weeydi number 1 ku adiga oo dadana waxoogay aad madaxa kor u taagto baashino ka dhimanaysa laakiin taas sirta ah adigii allun bay isloog cid aad amaan kaga doonayso iyo cid aad ajar kaga doonayso oo ilaahay ahayni ma jiro khuluqu rahma cid laga doonayo waa ay hadaba qof kasto awood leh awood dhaqaale hadaad leedahay naxariis waa laga doonaya awood jireed hadaad leedahay naxariis baa laga doonaya cid ka awood badan tahay adu naxariisato awood mas'uuliyad hadaad leedahay oo qalinkaagu uu ciqaab iyo wanaag ba keeni karo naxariis baa laga doonaya ninbaniku ka awood badan yahay ayaa laga doonaya naxariisto nabigu wuxuu alayhi salaatu wassalaam ayyuma imri'in rafaqa bi ummati allahumma farfuq bihi وأيما امرئ شدد على أمتي فاشدد عليه نبي هو أماني قال له ادعي قال له أخباري نينكستو أمتي إذا أرد بريا إلهي أرد بري كأمتي إذا كوات كينا إلهي كوات كي مركا نينكو بها دو مسؤول نغضو حدي لو قلنا حفيظ كاير بعض هاي ستا وقو خلقه وقو الرئيض بعنده وانا حريص تدكا كوز جوغا سيدا دوغا مسؤول سنتي دوغا سريسو ايو انا لك هاغا سي سريا عجيب ني صحابي ولا يرادو معاويه بن حكم السلمي معاويه بن حكم السلمي ايا وحو ahaa nin reermiyo soo islaamay maalintu soo islaamay wuu iska hadlay salaada dhexdeeda saxaabadu indhahay ku soo taageen nabiga dhinac ula baxay wuu tacliimay wuxuu yiri salaadu hadal uma baahno si fiican buu tacliimiyay xiriir fiican bay yeesheen marka uu islaamay ayu arigiisii doonta waxa uu haysa ariga adoon madow adoontii baa arigii tiriyeeyo neefa maqan neefkaas waa kee xaquu ku dambeeyay iyo bahal baa dilay dhirbaax u qaado dhag iyo dhawan buu muusaday waa inay yaro adoona cid iyo qaraabo yeelay leedahay ma jirto hadhowba haddana iimaankii ku dhibco wuxuu yiri wallahi waa dulmiday uu soo dhaqaajay iimaankii baa canaananaya wallahi inta yar waa dulmiday nabigu yimid rasuulallah inanti yareed baan xisaabiye neefa la waayay waan dhirbaaxay nabigu intuu ka jeestay buu yiri yaa muaawiya ogow sidaad ugu xoog badan tahay ayuu ilaahay kaaga xoog badan yahay subhanallah sidaad ugu xoog badan tahay in cid kaaga daba hadlayn ayaa ilaahay tuu kugu sameeyna cid ka daba hadlaysay uu kurbay saxaabiga uu kurbaday rasuulallah maxaa xala maxaan ku inantii xaq ku xaal mariya suu xoree inaad xoreyso oo qof caadi ka dhigto ayuun baabay xalkeedu noqonaya ii keensan xoreysid ila qof iimaan la xoreeyay nabiguna imtixaan buu ka qaaday oo loo keenay laba su'aalood diini weydii wuxuu ayna allah ilaahay mee satri fi samaa ay ala samaa ilaahay waa ka samaadka ka koreeya arshigiisa ka koreeya suri man ana yaani satri anta rasulullah rasuulki allah tahay suri atiqha fa inha mu'mina xore waa mu'minade
maalinkaad eri karto eed ciqaabi karto eed gurnada ka jari karto eed mushaarka ka jari karto eed ogow adigana tu ka daran buu Ilaahay kugu sameyn karaa marka inaad qalinkaaga iyo cududaada iyo darajadaada isticmaasho waxa weeyaan wax wanaagsan ma taa laga hadli maayo qof qaldan wixii qaldan waa la islaaxinaya bal waxaan oran karnaa maamulku wuxuu ummadda ku anfacaa naxariis Umar Khadaab baa ilaa maanta la hadal haya wax kala ma naxariisiisa ka badnayd wax walba habeenada kamida oo soo gabagabeynayay ayaa wuxuu habeenkii wareegi jiray wuxuu la kulmay caruur ooyes askiti buuri amusi udaf hadhow badan silbasi jeegare wali way ooyaya juri askiti amusi caruurta marka soo dana dhaaf mar saddexaad uu soo maray marka dama waxaan tuxri yaa suu askiti diflak hooyo xunina tan u maleynayay amusi ilmaha muxuu loo yeelay caaw sayid allah baynana wa bayna umar annagii umar ilaahay baa ummaana kala xukumaya waayo ilmahan wuxuu u qoraa gunnada marka laga guriyo waan ka guriyay waxaan uga guriyay in gunnada yar loo qoro uu ilmeey habeenkii salaadto wuxuu tukiyo garan waayay waxa wuxuu ku tukinay waa la garan waayay oohin sida umar oo maxad caruur dishay maalinkii buu iclaamiyo yiri dumaro waxba ha ka gurinina soo dhalashadu soo dhasho ayaan uga bilaabaynaa naxariistaasi waa ta keentay ilaa iyo maanta in la hadalhayo Umar Khadaab nin kasto muslim masuula oo ummadiisa u naxariistana waligeed la ilaahay maayo laakiin anagu haddaan Soomaalinay waxaan isdhacsiinay Soomaali yaa u taliyay oo aan laynin ayaan isdhacsiinay adeer leyntu xama hagaajis alla hagaajisa ma jirto ku ilaayay ayaa walaal wuxuu ku dhaamaan weyn way laayeen wadeen way loodin kari waayeen naxariistu waxay tartay dabacsanaantu adeegu ma taro marmarka qaadkeena naxariista doqonnimo ma noqona laakiin ma hasa waa wanaag iyo ragnimo way waxaan ku soo gabagabeynaa walaalayaal nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka muslim quudiya ayyuma muslimin ad'ama musliman min juu'in ad'amahu Allah min thimar al-jannah qofka muslim quudiya ee gaajo ka quudiya midhaha jannada laga quudiya وأيما مسلم سقى مسلما عن ظمأ سقاه الله من رحيق الجنة قفك حرات كورابيانا وحلقا ورابيا وبيادة جنة يودقون كبضا وأيما مسلم كسى مسلما عن عري كساه الله من حلل الجنة اسكو جوجيدا جنة لغو سينيا يوم جزاء من جنس العمل marka waxaan doonayaa inaan idhaahdoo naxariistu waa khuluq aad iyo aad u muhiim ah oo aynu doonayno inaynu ku tarbiyowno baranno ma jirta naxariis xaraan ah maray mamnuuctay ma jirta ha waa marka qofkani uu yahay dambi mid galabsaday oo la doonayo in laga fuliyo xaaladda in loo naxariisto waa xaraan ilaahay muxuu yiri az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahid minhuma 100 jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين نين إيا قبر زينيستي أو لقو عدي أو دلنيرا بقول شيطان كترا هنا أطورينو هون حارسانينا حالة دا سوكالي إن لقو عدي مركز فلوليسو حاران ويكات تورنين ين حارسي هذا زيادة لقو داري مالا ظلمي ماي مد ديل جيستي أو عمدي أوغان نفقوي اسم الله طول ما هل كل روا لقى مرينية لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة حالتها النوع عاسى المير إذا بدرسها ولا كرباشية كرباش كان كرباشية لكن نظام صن وابقون حريص هدين لقود دين لا والله صبالين لا وصيفه قيسن لها مركزها مالين ودركي oo waxba laga qabanayn aad oran doontaa waxa way ilmihii baa iga qalloocday macna waxa way bilowgii aad soo qaban layd ila wallaanta ayra urdinka ayaad qaban weydi wixii qeyr caadina inaga reeban diinna maaha qalafsanaatu sharci maaha laakiin waxaan u baahanahay inaynu baranno at-tarahum bayna al-muslimiin quwaduna halkaas ku jirtaayo nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad al-wahid mu'miniintu tusaalahoodu sida isugu naxariistaan ee isugu dhibriyaan ee isu jecel yihiin jir kaliya kamid yihiin
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذه حبنا حنوصته هبين كله سوتشيدية قفكي حمد إيه سوتشيد بلا سوتشيدية waxaan doonayaa inaad ilaahdo walaalayaal naxariista markaynu inagu isu naxariisano ayaa rabbina inoo naxariisanaya ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naxariistiisa adduunyo inaga dhargiyo naxariistiisa samada iyo taarlada waa Allah ina siiyo ilaahay adduunyada ha inoogu dul naxariisto uurka arlada iyo qabrigana ha inoogu naxariisto ma jeceshahay barashada xifdiga quraanka kariimka fursad iyo chance aad ku barato ma weyday haddaba waxaan ku hayaa dugsi waqti Allah iyo waqtiga chance ayso aad ka baranayso barashada xifdiga quraanka kariimka culumta shariicada islaamka waa madrasatul quraan online oo ay ku joogaan macallimiin aqoon u leh haddaba aad doonayso kala xiriir telefoonka shaashada ka muuqda ballanteenu waa inaynu ka faa'iideysano dugsigan madrasatul quraan online